Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Dooxa ee wadanka Qatar isagoo ka qayb galaya shirka madasha Dooxa Forum 2019. Madasha Dooxa Forum oo ay ka qayb galayaan madax ka socota qaar ka mid ah dowladaha caalamka iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa sanadkan looga hadlayaa amniga, tiknoolajiyadda, dhaqanka, ganacsiga iyo qodobo kale. Waxaana soconaya muddo 2 maalin ah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirka arrimaha dastuurka iyo mas'uuliyiin kale ayaa ra'iisul wasaaraha ku heliyay safarka magaalada Dooxa. Ra'iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Dooxa waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda ka qayb galaysa shirka madasha Dooxa Forum, sida uu sheegay safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya wadanka Qatar. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar soo gaaray maantay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo si uu uga qayb galo shir sanadlaha la yiraahdo Dooxa Forum ee lagu qabto dalka Qatar sanad walba, kaas oo ay ka soo qayb galaan madax fara badan oo caalamka ka kala socota, madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal leh. wuxuu bilaaban doonaa berito oo 14 bisha ah insha Allah taala 2 maalmood buu soconaya. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jeedin doonaa khudbad dheer oo uga warrami doona madaxda halka isugu timid xaaladda Soomaaliya iyo waxa uu qabsoomay iyo caqabadaha hortaagan iyo waxa ay higsanayaan insha Allah taala inay gaaraan termkan inta ka hartay. ka bacdi markii uu dhameeyo khudbadda insha Allah taala shirkuna dhamaado wuxuu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaruhu dhigiisa dalka Qatar iyo wasiirka gaashaandhigga ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Qatar iyo madax kale oo ka tirsan dowladda Qatar si ay uga wada hadlaan masaalixda labada dal ka dhaxaysa iyo wanaajinta xiriirka labada dal iyo xog isweydaarsi intaba. ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga hogaaminaya waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka dastuurka iyo madax kale oo ka socota Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sanadkii 3aad ka qayb galaya madasha Dooxa Forum oo ah shir sanadle oo ay soo qaban qaabisay dowladda Qatar. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Dooxa.